taliska ciidamada dambi baarista ee Kenya ayaa shaaciyay in ay gacanta ay ku dhigeen nin ku takhasusay dhaca haweenka howlgabka ah ee dawladda ka hela lacagta gaar ahaan kuwa kaligooda ah ee u nugul waxyeelada. Wislefa Mukaba Omonga ayaa la sheegay inuu si gaar ah u bartilmaameedsan jiray dumarka iskaabulada ah ee sugaya lacagta howlgabnimada. Xeeladaha uu adeegsan jiray ayaa ahayd inuu jacayl uu ku abuuro isagoo siinaya waxyaabo ay jecel yihiin dumarka, una ballan qaadaya inuu nolosha la wadaagi doono marka ay howlgabka ay noqdaan. Marka uu soo xirogeliyo kadib, haweenka uu qiyaanay waxa uu u sheegay inuu lacagtoodii uga abuurayo ganacsi isagoo markaasina la baxsada guud ahaanba lacagtii ay dumarkaasi lahaayeen. Marka uu sidaasi sameeyo, waxaa banaanka ku soo dhaca dumarkii oo qalbi jabsan, hantidoodii oo idilna la waayay. mid ka mid ah dumarka dhibanayaasha ah ayuu ninkan ka qaatay lacag ay howlgabnimo ay uga qaadan jirtay dawladda wadankaasi ee Kenya, taasi oo cadadkeedu ahaa 780,000 oo shilinka Kenyaatiga ah. haweeneydaasi waxa uu ku abuuray jacayl been ahayd, kadibna waxa uu ka dhaadhiciyay inuu u sameynayo warshad biyaha daweysan soo saarta. iyada oo aanu ka warqabin khiyaanada uu la damacsan yahay, ayay haweeneydaasi gacanta u gelisay lacagteedii, kadibna waxa ay bilowday inay walwasho. arrintii ku bilaabatay jacaylka macaan iyo ballanqaadka guurka ayaa kusoo gabagabowday oohin sida ay sheegtay waaxda dambi baarista ee dalka Kenya. dadaal ay u sameysay inay ninkaasi ay kusoo heshay haweeneyda ayaa ku guuldareysatay kadib markii ay ka dansaday teleefanadii oo idil. goor dambe ayay u suurta gashay inay ninka hesho, laakiinse waxa uu sheegay in lacagtii ay kala wareegtay shirkad caymis kadib markii uu bixin waayay dayn uusan qiimaheeda cayiminin. ninka eedeysanaha ah ayaa hadda ku xiran saldhigga booliiska, waxaana la filayaa inuu maxkamadda ka soo hormuuqdo isaga oo loo haysto dambiyo ku saabsan inuu lacaga ka qaatay kuna qaatay qaab sharci darro ah dumar uga qaatay. booliiska ku howlan baritaanka dambiyada ninkan ayaa ka codsaday dadka kale ee dhibanayaasha ah in ay la soo xiriiraan lana soo wadaagaan macluumaadka ku aadan qaabka uu u dhacay ninkani. dhacdadani ayaa ku soo aadeysay xilli isbuuci la soo dhaafay ee wadankeena Soomaaliya laga helay nin qaab khiyaano ah ku dhici jiray gabdhaha. Cabdifataax Cali Cumar ayaa maxkamadii dacwadiisa qaadaysay ka hor qirtay inuu dhac u geystay 30 gabdhood, laakiinse booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inuu teleefanno ka qaatay in ka badan 60 gabdhood. si lamid ah, Wislefa iyo Cabdifataax waxa ay qudhooda labada nin ay ka wada siman yihiin soo xirigelinta haweenka, iyadoo lagu soo xirigelinayo haasaawe iyo xiriir jacayl. xeeladahaasi ayaa la oran karaa waa kuwa ay ka siman yihiin labadan nin. waxaa kale oo aad loola yaaban yahay inuu ninkaani uu qirtay inuu fikradda dhaca ah waa Cabdifataax uu ka soo helay dhanka filimada Hinduuga ah uu ka soo minguuriyay. xeeralinta Soomaaliya ee dacwadda ku soo ogtay Cabdifataax ayaa sidoo kale ku eedeysay inuu al-shabaab uu la shaqeyn jiray. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ku xukuntay ciqaabo 10 sano oo xabsi ciidan ah ninka Cabdifataax lagu magacaabo.